وأن نلد بالدقيسان وأنا إذن جعلنا هاي وأنا إذن سود ويننا وأنا جعلها فرصة مركو أقول رئيس إنه كسود ويو ماذا حلانت أبقى الصومالي BBC ده عبد الله الشيخ عبد الرزاق سهيبة آد يا دوما حسن تحي dadkan madaxda faraha badan noo yimid waa soo dhaweynayna xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa nala jooga dabcan hadaa saakana xoogaha waa kii naga yara sheegtay marka laakiin hadda waan heshiinay gacanta isgalinay marka dhamaantiin waa mahadsantihiin waa maalin taariikhi ah oo aad u weyn oo BBC da taariikhdeeda maxaa yeelay 61 sano kadib markii ugu horeysay dhammaan waxa la soo wareejiyay barnaamijyadii BBC da oo laanta af Soomaaliga bariga Afrika ayaa lagu soo wareejiyay halkaasi oo dhageystayaasha inta badan ay ku sugan yihiin waxaan dhihi karaa ilaa 90% bariga Afrika iyo geeska Afrika ay ku sugan yihiin dhageystayaashani marka maalin weyn oo taariikhda gashay ay tahay annagoo arintaas u dabaaldegayna marka xaflad yar ayaan samaysanay xafladana madax iyo dhalinyaro iyo odayaal iyo gabdha noo yimid aad ayaan u soo dhaweynaynaa aad ayaan ugu faraxsanahay dhageystayaasheena Facebookna waxaan leenahay raadiyahana bbcsomali.com ayaa nagala socdaa BBC Somali TV ayadana habeenkii ay ka soo gashaa dhowr television hon cable TV ay ka soo galaan waxa kale ka soo galaan Kaltan TV waxay ka soo galaan SBC waxaan rabnaa raadiyoyaal badan oo waxaan leenahay oo partners ah Radio Daljir Radio Mustaqbal Radio Star FM kulli waa nagala dhageysan karaa iyo kuwa badan FM yaan ku leenahay 12 FM ayaan ku leenahay Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland marka waxaan leenahay dhageystayaasha halkaas ay nagala socon karaan markii aan soo dhawaana marka waxaan rabnaa inaan bixino hanaan cusub oo wariyanimada ah waxaan rabnaa inaan bedelno wixii laga hadli jiray qabta iyo jugta iyo dagaalka waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxyaabaha dadka dhiirigelinaya iyo waxyaabaha dadka horumarinaya waxa kale oo muhiimadda ugu weyn oo BBC u taagan tahay ah in dadka mas'uuliyiinta su'aalo adag la weydiiyo siday u shaqeynayaan wax laga weydiiyo su'aalaha shacabka guuxaya in la weydiiyo marka hawlahaas oo dhan aan qaban doonaa oo u soo dhawaanay oo u taagannahay marka dhamaantiin waad mahadsantihiin waana dhawdihiin Suhayba aad iyo aad u mahadsan tahay gacmo furan ku soo dhawaada aad ayuu u mahadsan yahay Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq dabcan dhamaantiin waad wada garanaysaan waa madaxa laanta afka Soomaaliga ee BBC da in hadda dadku waxay jecel yihiin wax yar in iska yaranastaan halkan waxaana la joogta maama idinka dhan aad wada garanaysaan Khadiija Fooday waliba waxaan ka codsan lahaa maamada heesaha qaraamiga mid kamid ah inaad dadka ugu dhufato Iper kumai